نبي الله إبراهيم أيه هجرودي سوغا إلا صعتها وين ديسي سارة لورنجري سارنا قبل قروح بدن باي والنبي إسحاق هو يدي iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorada ka mid uu ka taliyo boqor aad u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safara haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaada boqorkaa loo geey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi alatii macak war tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku yidhi waa walaashay waanaad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo aynloo walaalnay ma jirto ee haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari sug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay barayday ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik waaxsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaanaan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilaw gaalka ah igu ibtilayna waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay naftiisugu timi waa labadooda ayaa istidhi hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi illa waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay waar bal yara sug bay tidhi oo waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istidhi war haddana waa laguu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku dayay ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaas soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timi oo wahuwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana
qolo socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa gurigu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaau tafsiir ay yidhahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii baytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxan tahay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaad ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meel aan cidibo kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waxaan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhabi jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo u tiriyaayo uu leeyahy waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbii axsana mahwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahy waxaad sheegayso macaada allahi innahu rabbii axsana mahwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiyeen ظaalimkuna ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinayaa ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimii mahwaahu meeshaad dejinaysa iyo waxaas hore karaamee buu ku yidhi markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawo ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto inaan xaaskiisa u weydaartaa innahu rabbii buu leeyahay innahu rabbii waa kii ii barbaariyey oo axsana mahwaaya akrimii mahwaahu waatii uu yidhiye
وأحسن مثواي بولي دجان كي جنفي عنيسيي مر نبض ظلمي ما يبولي إنه لا يفلح الظالمون. إذا نبي الله يوسف وحي إلهي تصالى قرآن كوغل لكي تصالى شواوين النبي يوسف لأنه قصوصي كم التهي عفظة ولما عفة اللسان هي عفة الفرج لبدا النبي يوسف على قصوى نغلنيا ولا الذي سيوحي له كسمي يلي توبوها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلهي وحده فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توجا وكعشوضة عفة اللسان عرب كيسو دوري هل كنا فرج كيسو دوري مركا أركتي إن أنا أقولين أيوة حيسكت ضيدا إنه كفصته إنه حوكته أرنكو هيت لك سوداء في مركان حوك بمريا وحيسكت ضيدا إنه حوك هو قبطه حل كلام مركا مو هيو وعرر عكتو معين بيضا إنه أرضه أو بحصدو يسكت ضيدا يسكو أردية يناي إريسو ومرض النبر كايد الله عسي أيه وضيق يقولي قال هاكو كل من البابك مركا البابك كل منا أرنتي بوي ركتو حيتري ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم وما حي أبا المركا بيتري إنك الرير كاقو حماها الله دوري إلا حده boqorka wadanka ama madaxweynaha wadanka haweenaydiisa lagu yiraahdo ama waa la ciyaaraysa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana saad uga soo baxaysa cidi garan mayso haddaad boqor xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryayaa muxuu ilaahay weydiisanayaa رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بيتي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هدي وحا رماه السميم ويبي إلى دوال حدي كو اللي دلينا وكم النغن هدي له هذا حبسي إياك للدورة هذا ما هذا مركب نقول كذا مرة يسكده هل كان واحد جوكتا حبسي إيوه قيس كبورتو يلا إلى الله تماتات كلا دورة نسا نبي يوسف مركب أنا حبسي ودورت إن الرب عاصيه أيها وحول بكحم بولي سادر هذا دحلي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله حبسك أيها أكتيد لقاك القعل بدي وحي ويريا إن أنا حبسك قالوا أيها كرم بولي إلهنا سبحانه وتعالى وحط الماما يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكري قود يا خيامة قود يا نقرتو ده هداند أضو يدافنين وإلك ده ينبول يا آخر هداي دعضتها سنة وحمقرتها كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهله معلومات كماها علمه معلومات ماذا حاجة كتيرة ماها علمه وارد ورسان وإنت أتكون قنطع علمية أنت تربي كل وين يهي يا محارمتي سكت كجاب سنة يسوع يا إلهي سبحانه وتعالى وحني معك السيئة أنا دواء بالقدينين أد مع سيدي سكو سمايس سادر هذا النبي يوسف عليه له حبسك أيام نام وحي ويريان هدي أنا ضدوي دورنا واتشبيا إلهي وحليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إلهي الدعاء مكا أقبله دعاء مركو لقى أقبله محال له سمي حبس قال لك إذا دعاء لقى أقبله وامحي حماها هي حبسك حماها حل مركا كان حبسك يعني واحل وحماها سا إلهي سودا فيه دبتنا حبس على كده حبسك إلهي سيدا فيه يوم حلا كده مضح الله وكان نقضي وزير كواتك كتالي الله مركي دبق عادي ودور سند ودور سنة هذا طريقة كانتي أفرتي